wanaagsan daawadayaasheen halkan waa Raja Sport ku soo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka ciyaaraha sheekooyin xiiso badan ayaan maanta ku soo qaadan doonaa inta badan aan diiradda ku saari doono kulamadii la ciyaaray shalay horyaalka Premier League Serie A dalka Talyaaniga La Liga dalka Spain kooxda kubadda cagta Juventus oo taaka loo dhigay xilli Ronaldo u gaaray shabaqa Barcelona oo guul weyn gaartay kulankii ugu horeeyay Ronaldo Koeman oo ka soo muuqda kooxda Blaugrana Ansu Fati oo soo bandhigay taageerayaasha kooxda isagoo isbaray macalinka cusub ee Ronaldo Koeman kulamada maanta la ciyaari doona ayaan diiradda saari doonaa Liverpool iyo Arsenal wax walba aad kaga baahanta kulankaasi iyo xidigaha maqan kuwa soo laabtay rikoorada labada kooxood loo diiwaan geliyay inta kulan ay soo ciyaareen cidda guusha badan barnaamijkan ayaad ku daawan doontaan Ansu Fati wuxuu ka yiri goolashii uu xalay u dhaliyay nadigiisa Barcelona Luis Alberto Suarez isla dhalinkiisa ka hadlay guushii uu gaarsiiyay Atletico de Madrid isagoo kulankiisa ugu horeeyay wacdara ka dhigay kooxda uu hogaamiyo Diego Simeone warbixinada kala daawan doontaan waxa qayb ka noqon doona United ka dalabkii ugu dambeeyay u gudbisay Jadon Sancho Arsenal maxaa laga yiri laacibkii doonaysa ka tirsan Lyon Roberto Lewandowski oo sheegay xidigaha in ugu wanaagsan shanta ah isaga oo ka garab ciyaaray qodobada ay kuwa kale ay daawan doontaan suuqeena kama marna marka la dhacdooyinka ciyaaraha markale maalin wanaagsan dhacdooyinkaasi gudagali doona heer aniga ah soo jeedinaya in Cabdalla Kaamirda ka qaabeynaya waxaan ku bilaabi doonaa barnaamijkan ciyaaryahan Ansu Fati oo laba gool u dhaliyay kooxdiisa Barcelona ayaa ka hadlay guushii xalay iyo qaabkii goolasha u dhaliyay iyo cidda u suurgelisay markii la eegay waxa uu dareemay wiilkan 17 jirkan oo cadaraha dhigay kooxda Blaugrana ayaa isku bandhigay hogaamiye Ronaldo Koeman kulankii ugu horeeyay kooxdiisa xalay hogaamiyay 17 jirkan ay arantii bishan isku qoray taariikhda Spain mar uu noqday ciyaartoyga ugu daada yar ee qaranka dalka gool u dhaliyay wuxuu sheegay kalsooni weyn iyo caawinaad haysto ciyaartoyda Barcelona oo talooyin tusaale ku garab siiyay laakiin isaga shakhsiyan libax inuu doonayo horumar uu sameeyo wuxuu yiri damaciga ugu badan ay inaan horumaro Lionel Messi wax la yaraadkan yahay kii ugu dambeeyay baarka uu ciyaaray kadib markii uu shaaciyay inuu bixi doono ayaa inta badan ay siiyay caawinaad ay yiri haddana waxaan ka garab ciyaari karaa isaga mar walba uu caawiyaa wuxuu isiyaa talooyin dhab ahaantiin aad ayaan ku faraxsanahay inaan isaga la ciyaaro ayuu ciyaaryahan Ansu Fati daayirka kooxdiisa Barcelona guusha xalay ku hogaamiyay laacibkan ayaana isku bandhigay markii la eego guusha kooxdiisa iyo goolasha uu dhaliyay dhanka kale United ka dalabkii ugu dambeeyay ay u gudbisay Jadon Sancho wiilka garab kaga ciyaaray xulka England ee kooxda Borussia Dortmund ayaa markii la eego dalabyo badan ka helay United ka laakiin kooxdiisa ayaa ku dhaga adeegtay United inay waqtigan ka iibiso tababar Solskjaer ayaa xiliyaaradkan go'aan ku gaarin soo qaatay 20 jirkan Red Devils ayaa ka walacsan hadii Sancho la soo siixan waysa xagaagan in xiliyaaradka dambe tartan kula gali doonaan kooxo badan oo qayb ka ah Real Madrid iyo Barcelona Solskjaer ayaa rajeynaya in loo ogolaan doono 90 milyan oo gini inay ku soo qaataan laacibka Sancho iyo Alex Telles ayaa ah labada ciyaartooy kaliya hadii uu Solskjaer ku rajoogo waqtigan inuu soo qaato Red Devils ka xaalad aan wanaagsaneyn ay ku bilowdeen Premier League taageerayaashu waxay aad kaga careysan yihiin qaabka kooxda xilligan u shaqeynayso dhanka suuqa dhan kale kulamadii la ciyaaray waxa qayb ka ah Barcelona gool muhiim ah gaartay horyaalka dalka Spain xilli Ansu Fati shabaqa gaaray daayirkaasi laba goolna shabaqa dhigay dhan kale Rome iyo Juventus ciyaar xisaab badeed barbaraay ku dhameystay Ronaldo laba jeer shabaqa soo taabtay laakiin way awoodi waayeen kooxdiisa inuu gool gaarsiiyo laacibka dalka Portugal ka soo jeeda 450 gool ayuu xal gaaray dhanka iyo kooxaha goolasha u dhaliyo dhanka kale kulamo la ciyaari doona Manchester City guuldar xanuun soo gaartay waxay wajaheen kooxda Leicester City waliba gool 5 gool gaaray Fadi 3 ku lahaa ayaa lagu xasuuqay kooxda hogaamiye Pep Guardiola oo durbadiiba Benfica inay u boqoleen ka soo qaateen daafac kooxda ka tirsan City 5 gool lagu xasuuqay Leicester ay wajaheen waxna ay fadeexad weyn soo gaartay hogaamiye Pep Guardiola oo aad ka gacareysay taageerayaasha ku sugnaa markii la eego ama kooxda ku ciyaaraysa garoonkeeda Etihad Stadium dhibaatada soo gaartay City ayaa leeyahay inta badan Guardiola ayaa hor u sheegay inuu haysan xidiga muhiim ah dhaawacayna kaga maqayn xidigiisa kooxda ugu muhiimsan waxaan aadi doonaa markan kulanka Liverpool iyo Arsenal wax walba aad kaga baahan tahay shaqooyinka kulanka laga diiwaan geliyay Premier League ayaa isaguna mid aad u xiiso badan Arsenal iyo Liverpool waxay ciyaari doonaan mid kamid ah kulamada ugu xiisaha badan ee isbuucan xilli labada naadi ee markii la eego soo bandhigi doonaan awoodo mid ugu sareysay kulankan ayaa mid aad u xiiso badan hogaamiyaasha ayaana aad ugu dagaalami doona caawa in diiradda is saaraan
labadii ciyaarood horyaalka Premier League ciyaareen koox walba ay ciyaartay ay soo hayeen guulo markii la eego ama guulo ay soo gaareen. Liverpool aan garoonkeeda looga badin 60kii ciyaarood ugu dambeeyay horyaalka Premier League ayay ugu dambeysay khasaare ka gaartay horyaalka April 2017 ayaa waxay Arsenal la maagan tahay jab inay u geysto garoonkan si ay u hesho 3 dhibcood. Reds oo difaacanaysa koobkan ayaa horyaalka ku bilaabatay isla garoonkan waxayna 4-3 kaga adkaadeen kooxda Leeds United. Arsenal oo dhinaceeda waxa ay araadkan ku furtay guul koobka Community Shield. Liverpool ee rigoryaal kaga qaadeen 3-0 ay ku garaaceen West Ham 2-gool waa West Ham ay ku garaaceen 2-gool. daliilka ugu weyn Mikel Arteta uu heersa ayaa niyadooda ku dhisanay waqtigan ciyaartooy iyo xidigaha muhiimka kooxdu heystay guusha ka gaar Liverpool ayaa 2 jeer ka adkaadeen waxayna sidoo kale garaaceen City, Chelsea iyo Leicester waxayna isku dayi doonaan in xidigaha ku qanciyo inay leeyihiin awood ay ku adkaadaan. waa hubaal in Liverpool ay dhaawac kaga maqan yahay kabtankooda Henderson. tababar Klopp ayaa xaqiijiyay laacibka inay ka soo kaban waayay dhaawac soo gaaray. Thiago Alcantara ayaa la eegi doonaa inuu soo kaban karo isaga iyo Alisson Becker ayaa loo badinaya inay maqnaan doonaan. Liverpool ayaa heshay Joe Gomez jimcihii la soo dhaafay halka Chelsea daafac markii la eego iyaduna haysato. James Milner ayaa isagana shaki ku jira inuu kulankan taam u noqonayo kadib markii uu dhaawac ka soo gaaray muruqa. dhinaca Arsenal waxaa jira ciyaartooy dhowr ah oo markii laga dhaawac ku maqan laakiin Kieran Tierney ayaa la filayaa inuu taam noqon doono. laacibka Scotland ayaa la filayaa inuu bedelo Seth Kolasinac sidoo kale David Luiz ayaa loo badinayaa inuu kalsooni markii la eego ama ka garab ciyaari doono xidigaasi ay lagu magacaabo Gabriel Magalhaes. Arteta waxa uu heli doonaa adeega ciyaaryahan Sokratis Babadobolo oo Cedric Suarez kulankan kuwa markii la eego taam noqon halka Shakran Mustafi, Gabriel Martinelli, Chambers, Pablo Mari iyo Emil Smith Rowe ay dhammaantood seegayaan kulankan. Liverpool, Thiago iyo Alisson ayaa shakil gelinaya inay soo muuqan doonaan waana sheekada ugu weyn markii la eego kulankan laga diiwaan geliyay caawa ayaa la ciyaari doonaa waana mid kamid ah kulamada ugu xiisaha badan Premier League. qaybadna baan soo gaarnay suuqa iibsiga ciyaartooyda ayaan fiirin doonaa waxyaabihii ugu waaweynaa. suuqa waxyaabo badan ayaa jira. Manchester dalabkii ugu dambeeyay ee gudbisay Jadon Sancho 90 milyan ayayna ku doonaysaa inay ku soo qaadato lacagtaasi 20 jirka hadii Borussia aqbasho ayaa la eegi doonaa. PSG waxay xiriir la sameysay Chelsea ka doonaysa kubad sameeyaheeda lagu magacaabo Jorginho. Lazio daneynaysa United xidig qadka dhex kaga ciyaara waa 2 xidig Andres Pereira iyo John Mata. Bournemouth ka tirsan Joshua King waxaasna markii la eego dusha kala socda Tottenham oo doonaysa inay qiimeyso laacibkan. difaaca Portugal Ruben Dias 20 jir ayaa xaqiijiyay in Manchester City ay noqotay kooxda uu ku biiri karo wuxuuna xor noqon doonaa Eric Garcia 19 jir kuna biiri doona Barcelona. Milan wada hadal ay kula jiraan daafac midiga Tottenham iyo xulka Africa Sergio Aurier wiilkan markii la eego ay xidig ka tirsan ee lagu magacaabo Norwich Max Aarons weeryahanka Arsenal xulka Gabon Aubameyang ayaa iska diiday fursad ugu biiri kara Barcelona isagoo lagu qanciyay kooxda inuu sii joogo sida qortay Canal Palace. Leicester waxay qorsheynaysaa 23 jirka daafac kaga ciyaar Turin Gabriel Palmer Brazil halka Everton ay daneynayso. Barcelona ay soo afjartay xiisay oo qabtay weeryahanka Inter Milan xulka Argentina Lautaro Martinez 23 jir. City ayaa u bandhigtay 23 jirka Ukraine Zinchenko inuu ka ciyaaro daafac midig iyo bidix labadaba inuu ku biiri karo ama uu ku biiro nadiga Barcelona. Mundo Deportivo ayaa qortay sheekadan suuqa intaan ayaa ugu weyneed warbixinadan xiisaha badan ay ahaayeen wax la diiwaan galiyay. Arsenal Liverpool ayaa caawa la sugi doonaa waana sheekada ugu weyn dhanka ciyaaraha maanta la diiwaan galiyay. sheekadan ayaa ugu dambeysay Suarez isku soo bandhigay kooxdiisii Atletico de Madrid wuxuu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay Atletico mararka qaar way wanaagsan tahay yiri inaad badasho kooxdaada si aad guulo badan u gaarto. sheekadan ayaa ugu dambeysay barnaamijkan anigoo heer ayaa soo jeedinay Cabdalla Kamil ka qaabeynay sida iyo nabadgelyo.